dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ayaa munaasabadan soo qaban qaabiyay waxaana ujeedka munaasabadan uu ahaa sidii taageero ay ugu muujin lahaayeen in mar kale hoggaanka Puntland uu hanto madaxweyne Maxamed Gaas oo dhawaan musharaxnimadiisa kaga dhawaaqay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. dhalinyarada oo munaasabada ka hadashay ayaa iyagu waxa ay sharaxaad ka bixiyeen asbaabaha ay ku doorteen in mar kale Maxamed Gaas uu hoggaanka Puntland loo doorto. xalfadan wuxuu yahay ciwaankeedu dallis iyo daryeel bulsho oo ah madaxweynaha 5 sano oo hadda dhamaatay dawladda Puntland hogaaminayay. sidaas darteed xalfadanna waxay tahay mid aan ku taageerayno 5 sano oo soo socota inuu mar labaad madaxweyne ka noqdo Puntland. intaa kadib waxaan jeclaysanay in aanu qabanno barnaamij aan ku taageerayno madaxweynaha dawladda Puntland oo shaaciyay inuu yahay musharax u taagan mar labaad hoggaanka Puntland. madaxweynuhu wuxuu hore u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya aragtidiisa siyaasadeed ee uu ka soo qaatay Soomaaliya iyo aqoontiisii iyo aragnimadiisii dheereyd ee muddada dheer uu lahaa waxay Puntland u soo amaxday inay hesho baraare barwaaqo nabad iyo kalsooni lagu kalsoonaan karo. waxqabadka la taaban karo ee Puntland ka hirgalay waxaa ka mid ah inuu madaxweyne Maxamed Gaas dawladdiisu ay hirgelisay garoomo caalami ah oo maanta shacabka Puntland si habsami leh ay uga duulaan ugana soo degaan. garoomada waxaa ka mid ah garoonka weyn ee caalamiga Boosaaso International Airport, General Maxamed Abshir Haabaan Garowe, Abdullahi Yusuf International Airport. sidoo kale waxaa dayactir iyo dib-u-habeyn lagu sameeyay garoomada degmooyinka Baran, Qardho iyo degmooyin kale oo ay ka mid tahay Buuhoodle. waxaa guud ahaan la laba jibaaray wadooyinka dhex mara magaalooyinka waaweyn sida Boosaaso, Garowe, Carmo, Qardho, Gaalkacyo, Buuhoodle iyo dhammaan degmooyinka iyo gobollada kale ee dalka. Puntland waxa weeye 20 sano ayay asaasan tahay laguma guuleysan baa la yiraahdaa waxa weeye in dawladda ama dadka la gaarsiiyo one man one vote laakiin madaxweynaha Cabdiweli wuxuu kaga duwan yahay dawladihii hore oo runtii tusaale wanaagsan ah inuu one man one vote wax u eg waxa weeye hadda sameeyay oo ah one man one vote kaas oo ah runtii Puntland kama dhici jirin ama dawladihii hore ma ay sameyn jirin ama maba dhici jirinba in campaign-ka ololaha marka doorashadu dhacayso ama doorashadu socoto ama waxa weeye xilliga campaign-ka in waxa weeye dhammaan reer Puntland ay cid qof walba cidda uu doono uu marka u campaign gareyn karo. waxyaalaha runtii dawladihii hore ama Cabdiweli ka horeeyay qofkii dawladda ku jira dawladda uun buu ku urursanaan jiray laakiin waxa hadda xaqiiq ah in dhammaan musharaxiinta ama dadka waxa weeye tartamaya cid walba reer Puntland inay u ololeynayaan qof walba qofka uu jecel yahay ama la dooqa. mudane Maxamed Gaas madaxweynaheena sharafta badan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad mudane madaxweyne ku soo dhawow aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay bariya madaxweyne waxaan rajaynayaa shantan dambe oo soo socota inaad albaabka u furi doonto dhalinyarada in aad dhalinyarada la shaqeyn doonto waxaan rajaynayaa insha Allah taala inuu Ilaahay ka dhigo mid ku guuleysta xilka mid wax badan qaban doona mid ay mataqaanaa hiil iyo cabdi muxuu ahaa dallis kuwii kale tan way soo socdaan oo naanayso kale badan baa soo socdaa. Maxamed Xirsi Jabra, Puntland TV, Boosaaso.